Bismillahirrahmanirrahim. Maanta maxkamada Ingiriiska ee Somaliland waxay xornimadeeda ka qaadatay ee Ingiriiska. Calankii xidigga cad ee buluuga ah ee qaranka Somaliland ayaa laga taagay magaalada Hargeysa oo ay tahay caasimadda dalka cusub. Waa maalintii aan u dabaaldegayno dalkii u horeeyay ee Soomaaliyeed oo xornimada qaatay. Laakiin Somaliland waxay go'aansatay inay ku biirto Talyaaniga Soomaaliya 1 July 1960 oo ay ka mid noqoto Jamhuuriyadda Soomaaliya. Soddon sannadood kadib ay dib ula soo noqdeen madax-bannaanidoodii 18 May 1991. Somaliland iyo Soomaaliya waa dad walaalo ah waligeedna dalka u aan doona Soomaalida iyadoon loo eegin gobollada qabiilka aad ka soo jeedaan.